afgar guddidii ama ergadii u qaabilsanayd maxkamadda cadaaladda adduunka dowladda Soomaaliya waan idinka mahad celinayaa soo dhaweynta ballaaran ee aad noo samayseen mar labaadka guul baynu joognaa maanta waxaynu joognaa goor Soomaaliya ay leedahay bad xadkeedu cad yahay jeexan yahay sharciga caalamiga ah lagu sugay aynu guulaysanay taariikhi ah ay tahay inaynu ku faraadayno guushaasi waa guul dhammaan shacbiga Soomaaliyeed u soo hoyatay dowladda Soomaaliya u soo hoyatay xukuumad iyo shacabba u soo hoyatay waxaan u mahad celinayaa dhammaan mas'uuliyiintii Soomaaliyeed iyo shacabweynihii Soomaaliyeed ee kaalinta firfircoon ka qaatay ee ka shaqeeyay ee habeen iyo dharaar u soo jeeday in kiiskaas badda ama dacwadda badda ee innaga iyo Kenya inaga dhaxaysa ay ku soo dhamaato xukun cadaalad ah oo cadaalad ku dhisan oo xaq ah waa xaq aynu lahayn oo aynu soo dhacsannay oo inoo soo noqday maanta uu cad yahay xuduudiyeedka aynu Kenya la leenahay halka uu gaadhsiisan yahay Soomaaliya way guulaysatay saddexda heer ee baddu tahaybana Soomaaliya ayaa ku guulaysatay doodihii iyo dacwadii maxkamadda caalamiga ah haddaad u daba gasho tallaabo mar walba waxaa la qaatay doodii Soomaaliya waxaana la buriyey oo wax magami jiraan laga soo qaaday lagana dhigay doodii Kenya ay ku doodaysay waxaan u mahad celinayaa laga bilaabo dowladda ku-meel gaadhka ahayd Sheekh Shariif iyo ra'iisul wasaarayaashii la soo shaqeeyey wasiirka Saare Cumar Cabdirashiid ka mid ahaa wasiiradii arrimaha dibadda ee xilligaa iyo doorkii ay ka qaateen dowladdii xasan sheekh maxamuud iyo ra'iisul wasaare mar labaad Cumar Cabdirashiid iyo doorkuu ku lahaa Saare Cabdiweli Saacid wasiiradii arrimaha dibadda oo runtii kaalin firfircoon iyo door weyn ku lahaa oo wasiir Fuusiye ugu horrayso Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo hadda iyo barbar taagani ku xigo Cabdisalaan hadda iyo ku xigo Yuusuf Garaad ku xigo Axmed Ciise Cawad ku xigo Maxamed Cabdirasaaq ku xigo waayo wasiirada arrimaha dibadda had iyo jeer door weyn bay ku leeyihiin waxaan u mahad celinayaa baarlamaankeenii golihii shacabka ee aad uga dhiidhiyey oo mahad Cawad haddana ay barbar taagay goobjoog ka ahaayeen oo ay qaraar ka soo saareen dowladda hantida iyo xaqa ay leenahay waxyaabihii ka hor imanayay shuruucdeenna iyo lahaanshaheena badeedna ay wax majiraan ka soo qaadeen qaraar baarlamaanna ay ka soo saareen waxaan u mahad celinayaa madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo oo 4 sano iyo barkii si dhow guddidayadii ama ergadii qaabilsanayd run ahaantii ula socday dacwadda badda oo xataa dokumentiyada la dirayo ama jawaabta la bixinayo nala review gareyn jiro nala akhriyi jiray nala sixi jiray aad ayaan uga mahad celinayaa doorkuu ku lahaa ra'iisul wasaaraheenii hore xasan cali khayre oo 3 sano iyo bar door weyn ku lahaa iyo ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble waan uga mahad celinayaa dhammaantood iyo xukuumadihii kala duwanaa ee heerarkaas la soo jaan qaaday haddaydun geedi socodka dacwada u fiirsataan Soomaali mas'uul kasta doorkii kaga aadanaa ayuu ka qaatay shacwinaha Soomaaliyeedna waa u dhiidhiyeen waa u kaceen waa u sare istaageen bahda saxaafadda doorkii lahayd bay ka qaadatay maanta xaq aynu leenahay baa jira dhinaca wanaagsan ee wartibinta aynu ka shaqayno guul baynu joognaa Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha adkaato